السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك dhammaan asxaabta ku xiran channelkanaga. asxaabta cusub waxaan leenahay kusoo dhawaada channelkanaga. hadaad noo cusub tahay please subscribe, like, comment, share intaba same. insha allah maanta waxaa doonaa muuqaal kale oo xiiso badan oo ah sideen computerkanaga iyo mobilekanaga isugu isticmaali karnaa. macnaheedu maxay tahay? mobilkan shaashadiisa inaan ku xiro computerkan waxaan kugu tusi doonaa laba qaab insha allah. qaab through network ah, internet isku xirnaanayno, qaab through network aan ahayn oo caadi isku xiran insha allah. waxaan ku xiran doonaa through network ku horeyso. maxaa sameynaysaa? computerkaada tegaysaa meesha loo yaqaan start buttonka tegi doonaa. meesha searchiga halkaas waxaa ku qori doontaa wax loo yaqaano settings, ama waxaa ku taalaa meesha intay ku taalaa PC settings ama directed qor kii ku sii PC settings. kadib waxay imaanaysaa system, meesha ku qoranta system ayaa imaan doontaa. kadib qaybtan hoose ku qoran tahay PC and projecting to this PC kale ku sii. kadib markay timaadid halkan waxaa ku qoran always offer ku qoran software, waxaa saari doontaa available everywhere. meesha labaad ku qornaato wax loo yaqaano first time only, kan never ku haado, kan hadduu on yahay off click offer ku haado. marka intaad samaysid maxaa samayn doontaa? mobilkaada u imow, xumadana mobilkanaga halkan kore qaybtan kore soo deji, halkan hoos u soo wad, halkan fiiri waxaa ku qoran smart view. telefoonada qaar waxaa ku qoran second screen, wuxuu ku qoran bataabo smart view kale ku sii. fiirso smart view kale ku sii, ka kulli ku sii wuxuu ku leeyahay mobilka, wuxuu leeyahay doonaa device-ka ama computer ku leeyahay doonaa, wuxuu leeyahay doonaa mobilkii ama maxaa computerka ku xiran rabnay. halkaas fiirso soo qabtay computerkii kale ku sii. marka asee taabo computerkaas sida arkaysa waxaa kusoo booday allow dheh ama ogolow oo kaba ogolaada dheh. kadib waxaa soo bixi doona fiiri waxaa dhacaya fiirso waa kaasa fiiri waa isku xiranta fiiri. waxaa isticmaalaya hadda mobilkii fiiri mobilkii inta ka istaa fiirso ama ku tusaayo halkan soo fiiri. waxaan isticmaalaya mobilkii inta soo gal Facebook taabo fiirso waxaan ka shaqaysanaya mobilkii weya dhaladaan fiirsana waxay tahay taas way. waa kana fiirso halkaas ka wada fiiri, halkaas ka wado soo arkaysid. taasna waxay tahay waa adigoo isticmaalaysid waxa loo yaqaan okay. markaa hadhow stop garanaysid ama aad ka bixaysid maxaa sameynaya? waxaa sameynaysaa halkan fiiri calaamadan taabo, calaamadan meesha ku saaran kale ku sii. kadib meeshaan hoose fiiri waxa kugu qoran disconnect taabo. sidaasna waxaa ku samaysay waad kala fujisay. qaabkaasna waxaa ku samaysay waad kala fujisay. insha allah waxaa u gudbi doonaa qaabka labaad insha allah. markaan waxaan kutusi doonaa qaabka labaad. qaabka labaad uma baahnin wax network uma baahan doono insha allah. kaliya waxaan u baahanayna application inaan isdegno, ku dejino computerkanaga, ku dejino mobilekanaga, inaan haysano wax loo yaqaano USB, inaan heli karna ama haysano USB. qaabka labaad intaasaan u baahanay. waxaan ku dhikow inaan application ku dejino computerka, inaan ku dejino mobileka, iyo inaan haysano USB. marka u horeyso mobilekanaga aan ku dejino mobilka ku horeyso aan kutusi la dejinayo. waxaa hadda isticmaalaya waa qaabka hore. waxaad meeshaan ka isticmaalaya waxay tahay waa qaabkii hore. okay mobilkaada soo gal play store-kana keen. so mobilkaada soo gal play store-kana keen. ka play store soo gashada meeshaas kore searchig loo yaqaano click ku sii. kadib waxaa qori doontaa Visor, waxaa qori doontaa loo yaqaano Visor ayaa qori doonaa. waxaa qori doonaa Visor Android control on PC kaasi ku qoran tahay. waa arta aniga already waa isticmaalayay, open uu leeyahay. adiga waxaa leedahay install, waxaa sameynaysaa install waa kusoo shubanaysaa. marka Visorkan ama appkan ku dejiso mobilkaada. kadib maxaa sameyn doonaa? kadib waxaan teginaa mobilekanaga, waxaan teginaa cafwan computerkaan tegi doonaa. waxaan tegi doonaa computerkanaga. so computerka tagno any browser aa heli kartid software, any browser aa heli kartid software. browser markaa soo furtid meeshaan searching u qoraysa ama google wax lagu qortaa ku qortaa ereygii hadda qoranaysay iyo hadda qoranaysay ayaad qori doontaa. waxaa qori doontaa Visor, isla kii hadda qori doonaa Visor. free download daarad raaci aday ku taalaan Visor aad digi doonaa. kan Visor imaano halkan waxaa artaa shaqadii ama kabarigii www.visor kaasaan kale ku san doonaa.
iso kadib meeshaan su-aasha nagala rabo maxay tahay faysarku maxaa oranaa mac waa la yaqaanaa operating systemyada waxaa la yihahdaa computerka hadduu window ku jiro waxaad dooranaysaa windows hadduu apple yahayna maga dooranaysaa hadduu linux yahayna kana dooranaysaa hadda anaga kaan isticmaalayna waxaa weeyaan windows kan noo dejiyaa leenahay haarna windows waxaan ubaahana leenahay windowska okay kadib waxaa leenahay download noo deji sugi doonaa downloadkan u diriray okay bal aan ku celino maxaa yeelay marma isweydiino okay cafwan annaga degdegnay akaasas markasa wuxuu noo wadaa downloadkii wuxuu dejinayaa downloadkii ayuu sameynayaa faysarkii inuu dejinayaa okay waa sugi doonaa intuu dejinaya xogoo daqiiqo qaadan doona waa sugi doonaa insha allah okay waxaan filaa inuu dhammaansho nagu dhow yahay noo dambeeyey waxaan leenahay ama open aan dhigi karnaa ama show in folder labadoodii noo fudud show in folder aan iska leenahay waa kana applicationkii si application loogu shubaa taqaana double click kusii okay markaan sidaas sameyno applicationka aku sidaas ugu shubano waxaan sugi doonaa intuu nooga dhameynayo waa kana applicationkii uu noo soo furay applicationkii waa kana unoo dhameeyey applicationki unoo dhameeyey intaas waxaa usoo gudubnay step koowaad oo ah inaan applicationka la degno step labaad wuxuu ahaa inaan u s b haysano okay step labaad maxaan sameyn doonaa u s b ga haystid ayaad computer portkaada ku xiriirin doontaa u s b waa taqaan si lagu xiriiriyo markaad ku xiriirisid stepka labaad waxay tahay mobilekaada soo qabso u s b ku xiriiri markaad ku xiriirisid kadib maxaa sameynaysaa marka saas ugu xiriirisa maxaa sameynaysaa waxaan sameyn doonaa wax loo yaqaano fiirso faysar aan soo kicin doonaa faysarkaan dejinay ayaan soo kicin doonaa fiirso markaan soo bixino waa artaa mobilekana wuu haystaa keliya muxuu noo baahan view mobileka wuu haystaa wuu saxan yahay inuu haysta ku fiirso haddaan ka bixi wax dhahay fiirso muxuu ku leeyahay no device halkaan fiiri muxuu ku leeyahay no device make sure okay aan kusoo xiriirino device noo ogolaado waxaan dhihi doonaa view kadib waxaa noo soo bixi doona mobilekaanagi waxaa noo soo bixi doono mobilekaanagi filaa waa kaas abaarta marka waa kaas abaarata mobilekaadii ee halkaas kasoo dhacay waxaad sameyso tusaalahaan inta gal aan soo furno youtube-ka naga galno so shucaaca yaraa dareemaysaan filaya shucaaca yariiska ah waxaa waaye wuxuu ku aadan yahay inta yartay maxaa ii sheeg
aan isticmaalina muddo qada u horeeyo waayo haddii cabaar ay kadib nadiif uu noqon doonaa waa kasaa qaabkaas waxay tahay qaabka u isticmaali kartid mobilkaada iyo wax loo yaqaan isku isticmaali kartid qaabkaas waxay tahay qaabka ugu sahlan adigoo network la'aan ah isticmaalaya qaabka hore soo baraysa network qaabkan network way okay qaabkan dambe hadda ku tusaayo haddii uu ku shaqayn waayo lacala maxaa samayn kartaa qaabkan hadduu ku shaqayn waayo maxaa samayn karnaa ustaadu waxaan samayn karnaa wax loo yaqaano fidi aan kusuma karo mobilkan isku xiro labadooda mararka qaar waxa laga yaabaa qaabka u dambeeya USB isku xiraayay inuu cabaar oo yara daahiyo marka waxaan ku tusaa qaabka in lagu xalinaya cidaayada hadda jirto waxaan isugu xiranayaa qaabkii hore si aan ku tuso haddii aad xal samaynaysid mararka qaar okay fiirso waxaan sameynaa video qaabkan labaad waxay tahay waxaan ku sameynaa wax loo yaqaano mobilkan aan soo geli doonaa fiirso mobilkan aan soo gelinaa waxaan tegi doonaa settingskiisa waa qaabkeed dambaan kuu sheegayaa oo maaragtay USB hadduu ku shaqayn waaye meel laga xaliya jirto settings soo geli doonaa halka hooseysa fiiri haddii meeshaan developer options fiiri midaan u hooseyso hadduusan computerkaada lahayn waxaa laga yaabaa inuu ku shaqayn weyso okay developer optionka hadduu iga maqan yahay dadka qaar inuu ka maqan yahay laga yaabaa see lagu keeni karaa waxaa u keeni kartaa meeshaan about phone kili ku sii waxaad kili kusiinaysaa about phone ayaan kili ku siin doonaa kadib waxaan gali doonaa qaybta loo yaqaano system information kadib meeshaan ay ku qoran tahay build in number ayaan 3 goor kili kusiinaysaa aniga hadda macnaa sababta waxay tahay fiiri uu i yaala macnaa sababta ugu shaqeynayna waxay tahay developer optionka i yaal developer option daas ka xiro meeshaan ka saaray fiirso developer option iska daa meesha ka saarad fiiri waa ka saaray ismaarkiisu maqay hadda dan soo ceshay macnaa sameynaya phone kili ku sii about phone kadib system information kili ku sii kadib build in numberka ku dhufana fiiri 3 goor kadib passwordkaada ku weydiin doonaa passwordkaada gasho markaa password gelisid waxaa ku manay fiirso hoos dambe waxaa u dambeeya developer option markiis developer option kili ku sii aad kili ku siisid scroll soo jiid meeshaan ay ku qoran tahay USB debugging maarta meeshaan ay ku qoran tahay USB debugging waa filan arkaysid on ka dhig USB debugging on ka dhig markaas kadib wuu kuu shaqayn doonaa midkii dambe ka hadlayaa oo ah marka la isticmaalayo wax loo yaqaano USB waxaan filayaa dhammaantiin inaad aragteen ama fahanteen qaabka asaga ah ama qaabka u sahlan ee loo samayn karo please hadaad ku cusub tahay channelka anaga please waxaa loo yaqaano subscribe dheh adigoo galaya YouTube kanaga halka u sareysa YouTube-ka kusoo qor magaca anaga ama linkiga muuqaalku imanaya ku dhufo kadib uu imo muuqaalkii sidaas oo kale ka dhigaysto dhag subscribe ku sii muuqaalka like dheh share dheh comment intaba ku samee insha Allah waxaan filayaa inaad ka heli doontid muuqaalkan waxaana ku soo wadnaa muuqaalo kale oo ka sii xiiso badan markasta gabarka ku furnaado si ay kugu soo dhacaan muuqaalada cusub ee aan soo gelinayno Ramadaan mubarak وما سنتهين مركز aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin